yihiin haddii rabbi xugmayo waayeelkahaa bilicdaa san inoo sameeyey aad iyo aad bay u mahadsan yihiin kolley tacab badan oo ay muujiyeen markaa salaantaas islaamka ee dembi dhaafka ayaan ku salaamayaa akhyaarta dhammaan halkan fadhida ee xafladdan ka soo qayb gashay meel kastoo ay ka yimaadeen salaanta islaamka ayaan ku salaamayaa waan gaagaabinaynaa hadalka waxa weeye haddii uu inanka boqorka laga dhigay ee la boqoray uu haddii rabbi xumaya ammaan lahaa haddii waxqabad u lahaa intiiba waa laga sheekeeyey runtii suldaanku waa suldaan la wada yaqaan oo cid walba ilaa bari ilaa galbeed la wada garto nin walba ninkaa waan aqaanaa waa u qalmaa reerka qoyska uu ka soo farcamaynaa waa reer la yaqaan ee isaga qura kuma suugnee reerka oo dhan waa reer la yaqaan weeye oo taariikh leh runtii waxaa kaloo dumarku iyagoo salaantii iyo wax kalaba mudan haddana hooyada barbaarisay ee soo korisay ee dabeecaddaas iyo wax walba la soo martay way mudan tahay iyaduna ragga un baynu cadaaladeennu hewayna wanaagsan iyo reer wanaagsane halkii laga soo barbaariyeyna wanaaggaas waa halkuu kala yimi waa kaftan weeye kolley dhammaan haddii uunan siidh wanaagsan dhinac walba wadan ma noqdeen ninkaa taariikhda leh ee laysoogu yimi muuna noqdeenee kolley wanaag dhinac walba ayaa yaallay ilaahay haddana waxaan ka rajaynaynaa inuu u siyaadiyo wanaagga inuu u siyaadiyo ilaahay inuu karsiiyo waxa ay ummaddu u dooratay hadda salaadiinta qaabka loo doortaa waa qaabka agaasimayaasha loo magacaabo oo kaleeto suldaanku wuxuu wadi jiray cimaamadda reerka cimaamad sharfeed baa la odhan jiray marka haddii rabbi xugmayo reerku uu yeesho xaajo uu yeesho yaa la odhan jiray bah iyo boqorkeed baa halkaa tagtay la odhan jiray marka la rabo beel durugsan in lala kulmo ayaa isagana la sii kacayn jiray haddana waxaa la yahaa adugu shaqee haddii rabbi xugmayo dowladda waxaa ka doon ninkii casiiska ahaayee fadhihi jiray ee maalin loo baahan yahay uun halkaa sharafta la geeye ahaa cimaamadiisa hadda waa heer shaqaaluu maraya taasina waa taasee baldhaqankii saldanaduhu ay lahaayeen haddii la xoolayn jiray haddii la xurmayn jiray waar ha loo noqday yaan laga dhigin inaan adeega uun yaan laga dhigin ee sidii ummaddu ku dhaqmi jirtay ilaa iyo diinihii hore waxaa isku xidhnaan jiray dhaqan marka la leeyahay wadaadadu waa ka mid maaha salaadiinta iyo cuqaasha qura maaha wuxuu caalamka oo dhan ahaa suldaan kastaaba wuxuu ahaa shiikh barbar fadhiya xataa kiniisadaha saasay ahaayeen ilaa iyo haddana innaguna diintii ugu afdalsanayd bay haynoo salaadiintu waxaa barbar fadhiyey nin shiikha oo cadaalad leh oo wixii ka khaldan ka toosiyaday ahay haddase salaadiintii unbaa dhaqankii lagu reebay mashaaikhdii la yaqaanay haddii rabbi xugmayo cidna dhaqanka kuma tiriso taasna halkaasaan ku dhaafay waxaan taabanayaa salaadiintu waxay nabadgelyaday ku suntan tahay salaadiintu nabadgelyada ayay ku suntan tahay iyada ayay ka shaqeeyaan waxqabadka yaallaa waa salaadiintu waa nabadgelyada shayga ugu culus weeye waxaan hubaa in haddii rabbi xugmayo gobolkeennaa bari ee sanadadan balaayadu ka taagnayd raggoodii dhaqankahaa iyo raggii u gurmanayeyba si weyn inay nabadgelyada oga shaqaynayeen oo shayga inoogu dambeeyey yihiin sooriyada hadday tahay soo dhowaynta hadday tahay suldaan siciidkaa fadhiya ilaa intii halkaa balaaya ka dhacasay isaga iyo rag kaleo deegaankii ragga nabadgelyada ugu orodka badan buu ahaa ee ugu sooriyo badan ee ugu uruurin badan buu ahaa haddii rabbi xugmaya laakiinu dee marba si unbaa dadku hadalka iyo fikradaha u qaataa nabadgelyo hadda intaan tagnayna
isaga ayaa nagala shaqaynayay oo beeshiioo duuban keenay oo yidhi wax allaale wixiina lagu leeyahay anaa mas-uulka oo hadda dhigaya isagaa noola yimi reerkiioo isku duubanoo le war wixii nalooga baahan yahayna waan bixinanaa wixii haddii rabbi xugmayo annaku aanu leenahayna waanu doonaynaa meel aad iyo aad u wanaagsan ayay nabadgelyada hadda aanu ka nimeey marasay raggii qabanqaabiyeyna koow buu ka ahaa baan leedahay haddii haddee tan la soo hadal qaaday waxaa laga yaabaa warar gaadhay un inay jiraan annagaa ka shaqaynayno isaga iyo rag badan baa wanaagga iyo sunnada intaba ku suntanaa